Hello guys, welcome back to my channel. Walaalkiin idin leh soo dhawaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkayga, subscribe saar si aad ula socoto fiidiyowyada aan soo dhigi doono. Waxa macquul inuu ku qanciyo. Magacayga waa Wadani Bahar. Halkaad iga daawanaysidna waa Mujis TV. maanta barnaamijkeenu si aan hore idinku sheegabo waxaan rabaa inaan bulshada hurdada ka kiciyo ama dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan fiidiyogeena hore kaga soo hadlay 3 shaqo oo nolosha lagu maareyn karo. Kan waxaan rabaa inaan kaga hadlo 3 kale oo shaqo oo aan noloshiina ku maareyn kartaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Gabar iyo wiilba waa isku maareyn karaan, laakiin gabadha kasto wiilish ayay ku socotaa sheekadan. Okay, aan u gudagalo sheekadeena ama shaqooyinka aan rabo in aan la wadaago dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan si gaar ahaan ula hadlayaa kuwa soo bartay aqoonta si haadada wato kadibna sugayo in ay ka helaan xafiisyo shaqooyin. Laakiinse ma aha naftaada inaad ku inqaabto shaqo oo la barbariyay ama la soo dhibaato lagu soo helay ama aad u rafaaday. Waxa kaaga fiican adigoo lagu baahan yahay inaad shaqo hesho. Waa difaantaa filaya micnaheedu ma aha waxaan ka wado aqoon yar baran. Aqoontu hala barto laakiin farsamaduna hala barto. Way fahantaan filaya sababtoo ah farsamadu waxay ku horseedaysaa in aad noloshaada ku maareyso meel walba aad joogto. Waqti walba ayaad ku baxsanaysaa, meel walba ayaad kaga baxsanaysaa. Waxaadna helaysaa shaqo iyo lacag adigu anfaca. Mana baahanaysid, mana bariyaysid qof facaaga ah. Waxaad noqonaysaa qof ismeel mariya oo meel iska soo saara waxtar leh, dadkiisana wax u qabsada, naftiisana wax u qabsada. Shaqooyinka farsamooyinka ee lagu isticmaalo ama farsamooyinka la barto ee shaqooyinka lagu helo. 3 shaqo maanta aan rabo in aan dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheego in ay bartaan. Haddaysan aqoonin, hadday yaqaanana way fiican tahay. Midda koowaad waxay tahay shaqada ugu horeyso aan rabo inaan kuu sheego waa kabalyeeri, waiter, hadba sida u taqaanid, ama cunto geegeeye, hoteelada, maqaayadaha, meel walba waad kaga shaqaysan kartaa. Waa inaad barataa sida cunada loo geeyo, macaamiisha loo soo dhaweeyo. Taasina waxay ahayd midda koowaad. Midda labaad aan u gudagalo, midda labaad waxay tahay oo maanta miiska inoo saaran dabiiqan. Dabiiqan macnaheedu ma taqaanaa? dabiiqan waxay tahay aan kuu sheegayaa. Dabiiqan waxaa la yiraahdaa kuwa gabaarida dabka u saxa. Yani baabuurka dab ayuu ku shaqeeyaa, basiino kaliya kuma shaqeeyo. Dad baa ku shaqeysta dabiiqana la yiraahdaa. Yani dabka baabuurka waa inaad barataa sida dabka loogu saxo gabaarida. Waa midda labaad. Way fududahay dabcan haddii aad iskugu talgasho inaad barato waad baran kartaa. Midda saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago oo aan rabo inaad baratid oo aan rabo inaad ku shaqeysatid waxay tahay waa fundi. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit. Fundinimo ama sida guryaha loo dhiso waa inaad barataa. Sababtoo ah haddii aad barato alyom ayaa la yiraahdaa dabcan waad fahmi kartaa, noloshaadana waad ku maareyn kartaa. Maantane waxaan halkaasi ku ekeenaynaa fiidiyogeena ama 3 shaqo aan rabay inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed ee jiifa oo la fadhiya jaamacadaha ama iskuulada shahaadooyinka ay ka soo qaateen kuna raadinayo inay ku raaxaystaan, rabo inay ku fadhiistaan kursi ama xafiis ama meel aad iyo aad u macaan badan nafta ay jeceshahay. Laakiinse ma aha naftaadu inaad ku inqaabto waxaad heli karin. dabcan waa ogahay waad helaysaa haddii la raadiyo balse waxaad helaysaa goor waqtigii ka dhacay, goor aad iscilcishay, goor aad madax ku xanuunay, goor aad isfiilad ka qaaday. dabcan waad fahantaa filaya balse inta adigoon rafaadkaas gelin, adigoo taasina raadinayo, farsamadana waa taqaanaa, waad ku meel marinaysaa, taasina waad raadinaysaa, tanna waad ka guuleysatay, taasna haddii aad heshidbo waad ku fadhiisanaysaa. markii taas aad isku dhacdo ama dadka dhisma macnaheedu dadku isku dhacan xafiiskii ama meeshii shaqadii aad ka heshay dawladda ha ahaato ama ha ahaado shirkad, haddii aad ka heshay meel macnihii sare
ama kursi lagaa fadhiisiye ama boos lagaa siiyey kadibna maamulaha ama waxaa isku dhici kartaa milkiilaha oo shirkadda shaqada waa laga soo raacday karaa ma waxaa sugaysaa haddana inaad shaqadii shahaadadii maad wareejinaysaa waa maya naftu waxay u baahan tahay nolol naftu waxay u baahan tahay lacag inaad facaaga la tirtantid labis ala labiskaarid inaad xiratid dadkaaga inaad lacag siisid inaad noqotid nin aan marnaba hoos u liiceynin inuu taagnaado maxaane taasi haddii aad rabtidne waad gaaraysaa haddii aad taqaanid farsamo meel walbana waad kaga baxsanaysaa adigoo shahaadada wato shaqo kala raajicinayo tanne waad ku baxsanaysaa noloshaadna waad ku maareynaysaa baro farsamooyinka iyo shaqooyinka aan kuu sheegayo fadlan waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontaan ujeedka aan leeyahay halkaasina waxaan ku gabagabeynayaa videogeena next video haddii aad jeceshahay in aad daawato ama aad la socoto subscribe saar kadibna kambaleel ka furo waxaan ku leeyahay meel walba aad joogtid ku nolow caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan Soomaaliya